ramadaan wanaagsan daawadayaasha ku xiran Hubaal TV barnaamijkeenan cafis ayaa maantana waxaa marti inoogu ah Xayr Cali Rooble oo in badan aad wada taqaanaan barnaamijyadeena badi wuu kusoo muuqan jiray maantana waa madal kale ayaan isku aragnay Xayr Cali Rooble kusoo dhawow Hubaal TV caawa ku dhawaa Hubaal TV waxaan u maleynayaa inaan deganahay xaafadayda u maleynayaa Hubaal TV macaa soo dhawow hadda ikow dad badanna way kusoo codsadeen mar kale waa kana wasla joognaa cawada bacda ramadaan laakiin ramadaan qosol bacda ramadaan kayd haddana waa ramadaan ما شاء الله ما شاء bacda الله ramadaan wax badan ina soo wado dadka way ogyihiin dabcan ما إن شاء الله واجي بري وركي له اللي مقتهد هذا ولي بن وقت جيل الروح ولي بن وقت له ما شاء الله ودوا حابه barnaamijkii qosolka iyo qaraxda wuu ka duwan yahay barnaamij la yiraahdo cafis ayaan qabanoonaa oo ramadaanka aan ugu talagalnay in dadka Soomaaliyeed ay isku cafiyaan dadka wax kala gaaray Xayr Cali Rooble adduunyada intaad joogto waay badan aad soo joogtay cimriga Allah ku barakeeyo ma jira qof dhibaato ku geysto horta in la iscafiyo fi cantahay wax wanaagsan waay laakiin إلهي أمر كيس بش رمضان كليها ما لسعفية إذا بلا مركز على الإسبانية هرتين لسعفيه سببته معناها إن أيضا أوركو حل سكوها يو إن أي وقت أجيش هذا تمادو وحفي عم معها إن لسعفيه مركو ريتو في عنتها لكن بش رمضان وبلها عبادة بدن وناقة بدن مفرق إن بدن لكن هذا عد إسليه يا فيها هذا معناها أو هذا إسليه كرو وحبيك قف كود دقرة قف بين كاشيء قف العق كحضي قف بين إيش شيء ما أجي ومركو إيش شيء هدا أنجوج وكعيش لاي مقتنع قفرت واحد يقول فتني ودري ما وحياة بدن يوصل داعي أنا قبل أنت جيستي أيام بدن معناها أنت جيستي مركا أنت ليه جيست أنا هدا يسرق قف ضلع عفيني هاي أنا هرت الدولة الثانية عفلاي هاي الدولة الثانية بحكوا جيست هر دولة تليانية عفلها يو أنا دولة تليانية واسكت عنه أنا رهلوا بقى ها دولة تليانية أنا جوا إدلين ها أنا جوا شخصي أهانتي أنا جوا إدلين ها أنا دولة تليانية إن وعيك حين سبتال قصص وهاللي جمالي رهيلويني اللستي بقول أسكري كل واحد أيام معناها سيري دون تيدشي وفي قناة ميد أهان أيام معناها هذه كلجة ما عد أنا كلجة أنا بس حاجة لبستها مكان waxyaabo ayaga danahooda markaas ayaan ka soo horjeeday sida ay wax u wadeen dawlad gooniya qorshaha marka ayaga meesha ay ku joogeen waxay nabar ilaalin laakiin macnahoodu wuu isbedelay oo wuxuu tagay macna kale uu soo rogay halkaas dagaal kala qaaday marka maalin si kaliisa ay u heleen oo anigu wiil ii dhilanay isbitaalka soos maalin farxadeyda ahayd ayaan barnaamijka markaan u soo baxay ayaa baabuurtii wax raacday dhinaceeda ka timid isbitaalka soos ayaa horiga baabuur ii dafay halkaas igu miir dambeysay maskaxna waxa igu horeysay maar xeebta liido badda anigoo xeebta tobanaad helicopter maqribna ay tahay 12 saac bar helicopter leega soo riday leega soo tuuray teenda ku xiran niman doon leeya oo shabaaga raba inay soo dhigtaan ayaa wax arkeen diyaardan waxa ka soo dhacay way u soo tartameen way soo qaadeen aniga soo bixiyeen ما هو كان أدون كان صوتور محاوي أدون كان ديارتك صوت عوايس ده يقلب تودا وترتمي لبده دون مركي دون تلي صوت ساري أو بنان كلا يكيني أو باش حرق لقى فري نين كان أودجها كل حجر النول أو ديلان مركا قف كسب وقت بوليه لكن أيوة وما يسن تلقلين حلقة ثانية جينا النول هذا لكن والنول مد أهاني يتجي وحيقول جايين معناها إن أو مقتي ودم بيا وحلقة يابا وحليري أو لسرعة marka aniga soo badbaaday kadib in ilaahay qalbadooda uu ka saaray waxa jirta dadka rabo in la qoosiyo marka diyaaradda laga tuurayo ayaa waxa lagu ridaa bir tarbiyadi ah lagu xiraa si ay u dajiso u qoodiso macnaha birta awooday leedahay waa bir waaweyn afar ganood waaye gana kor u taagan oo laaban gantaas lagu xiraa qofku waxay geynaysaa salka إلهي أيام معناه والإلوسي إلهي حير إنه حلق عن حاولوا وشكايو أيها قرن وحولي بوا وقتي مركا وده كان واحد بدن وصومرنا حاو مركا إرادها وحال يرفض قديل أركو رابو فرك الدوق النقونية لبن ويل أو لنعيد يدفدي أو من ملك يفدي من بدح يفدي واحد حسوستا إن أنت الباب كلا جسوا قال نكان للدلي qorshe lagu dilay macna la yiri wali ninku meeshaas uu ku jiraa
laba nimanku meeshaas ku jiraan ninaa u dhaxeeya labadooda geeskay kala jiraan ninkaas ha isku taabanina labadaas nin waay targetka si toos ah loo soo baxay maskaxdooda ay ugu dhacday aniga maskaxda nimankaas dhiigooda firkooda wuxuu ay ugu dhacay ma fahmay marka wax walba waa la soo maray waay hadda dawladda Talyaaniga waxaa laga yaabaa muuqaalkan in laga yaabo in loo fasiro oo uu gaaro dabcan xilli hore ahayd ma laga yaabaa magdhow inay ku siiyaan magdhow diidid waa la qaatay waa la qaatay dadkayga qaatay aniga waa la qaatay waa nimanka waa loo tagay waa la qaatay diidid waa loo qaatay waa la qaatay ninkaas waa loo sheegay macnaha markii aniga badda la iga soo saaray kadib waxaa dhacay dagaal loo qaaday dawladda Talyaaniga oo looga saaray waqooyi Muqdisho koonfurta Muqdisho waqooyiga ay u gudbeen dagaalkaas marka uu dhacay xaafadda Hiilwa uu ka dhacay aniga meeshan deganaa waa meesha nimankii wax yeelayna waa meesha in ayagoo ku talagalay marka inay xaafadda hubka iyo waxa ka raadiyaan hubka ay ka bixiyaan USC dagaal socdo wadankan dawladda Mareykanka iyo USC marka ayagoo marka nabad ilaalinta ku yimid marka dagaaladii dhacay nimankii waxa way si toos ah loola dagaalay oo waa la gacan saaray marka markii oo nimanku ay soo hadleen oo la soo celinayo la soo wada hadlay ayaa waxa loo sheegay aniga markii nimanka ay ka haysteen waxa loo tagay generaalkii ugu sareeyay Brunloy Talyaaniga Brunloy nin liira haystay waa loo tagay waxa la yiri dawladda askarta Talyaaniga waxay ka haysteen Xayir Cali Rooble oo degan halkaa noocaas ay waxay ka kaxayeen soos ay ka kaxaysteen wuxuu raadiyay oo tarafgareeyay oo galay macnaha in oo maxaabiistii oo raadiyo hiil weyne ay degan u ahaa waxa laga soo raadiyay macnaha aniga shaqadeedii wuxuu yiri Talyaaniga ma aysan kaxaysan ee waxa kaxaysan Mareykan adeeraday ayuu haysta macnaha in oo Pakistan meel kale haddana la iga raadiyo si kale la raadiyo ayaa marka aniga nimankan Soomaalida ay soo heleen oo kalluumaysatada waxay cadeeyeen in diyaarada helicopterka dawladda Talyaaniga ay meesha ugu soo turtay anigii markii aan miir soo helay ay la wareystayna macnaha markii ugu dambeysay Talyaani inuu gacanta igu haayay cadeey markii la isku dhacay kadib ayaa macnaha nimankii waxa laga soo qaaday macnaha maxal magdhow la qaaday waa ka soo gaarin dabcan waa iska xooga waa cafiye laakiin haddeetaan macnaha wax dhib oo hadda aan cafiyo oo igu weyn hadda la yiraahdo marka maxaa cafinaya aan dawladda Talyaaniga iska cafi lahayd